Khadar Xuseen Cabdullaahi xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadan oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe xisbigaasi wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu wax lagu xumaado ku tilmaamay isbitaal guud ee magaalada Hargeysa oo marka ka dambaysa ka sii daraya. Khadar Xuseen Cabdullaahi waxa uu ugu baaqay gudida kooritaanka caabuqa safmarka ee COVID-19 heer qaran in dib u eegis lagu sameeyo. Geesta kale Khadar Xuseen Cabdullaahi waxa uu ka hadlay dhalinyaro maalmihii u dambeysay haysatay baraha bulshada ay ku xidhiidho kuwaasi oo soo saaray baaq shacab madaxweyne cisbitaalka Hargeysa wuxuu ku jiraa 200 talaabo waa waajib ku saaran waxa ay dadku sheegayaan maalin walba laga hadlayo inaad baadho oo dadka aad soo bandhigta baadhistaasi waxa ka soo baxa maalin kasta waxaynu aragnaa bukaan socod ama qof xanuunsanaya oo cabanaya waxaynu aragnaa qofkiisii uu jeclaa dhintay oo cabanaya oo dayac ka cabanaya dunida kale marka qof dayac u dhinto cidda dayaca sababtay talaaba laga qaado marka ugu yartahay xilkooday ku weeyda dadka maxaynu ku nidhahnaa dadka maxaad ugu jawaabaysaa dadka maxaad u sheegaysaa kumanaanka kun ee kale ee warwarka qaba ee maalin kasta hadlaaya madaxweyne maxaad iyagana ugu jawaabaysaa maanta waxaan soo jeedinaynaa arrinta gudidaasi in dib loogu noqdo gudidaasi laba mushkiladood oo waaweyn baa haysta mushkiladda koowaad gudidaasi ma laha xirfad caafimaad mushkiladda labaad gudidaasi ma laha xirfadda waxa la yiraahdo crisis management ama sida loo maamulo marka mushkilada waaweyn ay dhacaan in sharuurun la isugu yimaado maaha oo shir jaraa'id la qabto waxaynu u baahanahay oo maanta dawladnimadeena dacfigeeda muujinaya burco in maanta 29 sanadood kadib ambalaas loo dawraayo laba week ka hor waynu la wada soconay wixii ka dhacay baraha bulshada iyo sidii dadku ay uga hadlayeen ay uga falceliyeen aabay nagu tahay in maanta cisbitaaladeena loo dawro ambalaasyo loo dawro inagoo cashuurta bixina dawladeena sanad walba ay tiraahdo budgetkii dawladda kordhay xaguu budgetkaasi taga sidoo kale madaxweynaha waxa laga doonayaa intii hawshan ay socotay qasnada dawladda lacag baa laga saaray oo loo dhiibay gudida si ay u maamusho sidoo kale dad badan oo محسنين هو شعبيين غير سومالان يجنحسته أو يقول ريان تلصوم يذهب شيل يوول رمت أنتوا بنا العق محن كل هذا تأكلوين يك جيستين أرنتن سيدو كله هذا عالم يبقى يقولون تأكلك جيستين مدحوينها يجود دبوا حلا جدون يا سببت إلا هذا نلاقع عبنا يو وحلا أقبل كرهنتي ما هالشعب يقولون رجيسن كرو أكسجين لعان عدمان تودمتو تيو أيلوبنا هين وحصل العجا يخرج الجلي لعكتها سهلك يكون بحذي يصير الله استعمالي يهلك تكتي يوحل لو قرشي أنت على الاستعمال الله استعماله ما أنت مدحوينها هي حكومة دولة السورية وإيمان بالين با ما إيمان لأن با هاي سبع حكومة دولة لو جبها هي دتكم مركا أي سمايان ضد دتكم مركا أي دليلان دتكم مركا أي خلط شراء كهرلان إني هدي فكرة ده فكرة كدوان قبطع ضد كسب بندكتو ما هين حرقي عق جبلين كسب بندكتو ما هين عيتن يا فلقات كسب بندكتو ما هين دليلة كتر هذا هو إيمان لأدي أو إيمان الآن أيام محن كده هذا إيمان الآن بعدين كردي إن لجود هذا أرين تاسي أرين أيتهاين حال لقب بحيو أو حكومة أي كان نقطوي waxaynu baahanahay oo dhalinyarada reer Soomaaliland aan xaqiiqatan ku baraarujinaya oo hadalkan ku soo gabagabeynaya dhalinyarada reer Soomaaliland inay baraarugto inay eegto waxa hareerahooda ka dhacaya inay ogaadaan 29 sanadoodii ugu dambeysay maanta qofkii dhashay dawa 29 jir weeye waa adult dunida 29 jiradu taladooda qayb weyn bay ka yihiin inta ka sii yaryarina waxa weeyaan iyaguna waa de soo korayaan oo waa socda وحمزة أحمد سليمان حمزة الدباري تلفزيون كيستا هرقيسة